السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه كسر دوادة تلك الصبيان ما تحن لقى السنة قدير أو عافماد أو هيلتي أو عادي هذا فضل عادنا وعافماد بدن وقت بدن أن كقاعدين إلى السعوي عن كسبنا إيدا والشوعا halkaa waxaan ku shubtay saliid yariis baan digsiga ku shubtay kadibna basal aan soo jarjaray ayaan ku darsaday hal xabbe toon ayaan ku darsanaa insha Allah marka waa qada yar oo waqti badan qaadanayn insha Allah aad iyo aadna u fudud aadna caafimaad u leh haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo darsaday insha Allah waa filfil shiidan filfisha caadiga ah madow ee shiidan aan ku soo darsaday kadib waxaan ku soo darsaday waa curry powder xawaaji mataqaana isku jarjaro oo noocyo badan leh oo curry la dhaho waaye qofal buu karnaa malaynaa kadib waxaan ku soo darsadayna waa huruud cuntada lagu daro huruud aad bay u fiican tahay marka waa kaasa hadda waxaan ku soo darsaday qaado maraq digaaga aan isticmaalayn waa midka qudaarta ka samaysan marka intaan baan waxaan rabaa inaan mataqaanaa qada yar oo kaale iska aragay aan ka soo saaro maasha Allah tabaarakallah waa qada aad iyo aad u fudud waxa aan ku soo daray waa basbaas guduud haddii aad rabina waa iska dhaafi kartaa kadib intaana isku soo shiilay wax yar waa isku shiilaya intii aan xawaajiyadii iyo wixii basashii iyo alaabtaana waxaan rabaa inay wax yar iskula kay shiilan waa kaas hadda ii soo shiilanta abaarir kadib waxaan ku soo darsanayaa yaanyo qasac oo aan aadna mataqaanaa u shiidnayn oo xoogaa jarjaran camal ayaan ku soo darsanayaa tan normalka hadaa haysatay yaanyada caadiga ana waa jarjaranaysaa iska inkaa ka fiiqaysaa kadibna saana ugu darsana daboolkan saar cabaaraan ka maqnaanaya inay isku soo huuraan kadibna waa ku soo noqday waa kana maasha Allah tabaarakallah isku soo shiilmeen xoogaa wali laakiin waxa u dhiban hadda waxaan ku soo darsanayaa waxay tahay waa sanjabiil iyo toon isku shiidan waaye sanjabiil iyo toon isku shiidan waaye kan waxa waaye waa mango hot away waa cambe iyo mataqaanaa xawaajiye basbaas iyo wax la isku daray waaye isagana waa qaada ayaan ka isticmaalaa badar marabi marka waa kaasa alaabtan khatar waayaan ku dhahay waxaan sameynayaa maasha Allah cuntadan yaanyadan iyo alaabtan aan mataqaanaa carafta maasha Allah tabaarakallah ilaahadan siinoo siyaad inta aan haysanaysi alaabtan mataqaanaa aan sameynaa tiro maxaa is leedahay maxay ku soo dari doontaa yaanyadan kaliya ee maanta noo dalxiis dalablash bay gabadhan noo sameyn rabtaa ma dalablash ma laakiin waa cunto healthy oo aad iyo aad u fiican hadegdegan walaashay ama walaalkay daawo wixii aan ku soo dari doono wax cajiib ayaan ku soo darayaa insha Allah waa kana hadda yaanyadii iyo xawaajiye wixii si fiican isaan rabay ay isugu soo dhaxgaleen wayna soo burbureen waxyaabo ujeedid waa kana wax hilba maan isticmaalayo maanta waxa aan ku soo darsaday waa fuul digirta fuulka la dhaho ee qasaca ku jirta ayaan ku soo darsaday fuulka waa kala noocyo badan noocan isticmaalaya xoogaa buurbuur waa digir buurbuuran marka haday qasaca ku jirto xoogaa basasha iyadoo adigu waad karsanaysid way jirtaa tana isticmaala waa qasaca ku jirta insha Allah way yar basashahay marka alaabtii sida wacan igu shiilantay aan ku daray insha Allah waxaan hadda ku soo darsanayna waxay tahay waa caanaha qumbaha haddii aadan haysanin caanaha kala isticmaali kartaa oo yogurtka bleenka laakiin caanaha qumbaha aad u jecelahay waxyaabaha lagu kariyo iyo briska lagu kariyo iyo maasha Allah waaye caanaha ana marka ku soo darsaday alaabta marka waa huurinaya dabka u gaabina cabaaraan ka tagaya waxa ka soo baxaya full curry sauce oo aad iyo aad cajiib maasha Allah daboolka saaraya muddo ayaan ka maqnaay hadda ayaan ku soo laabtay waa kana meeshii aan ka rabay ay ii joogtaa dabka waan ka damiyay markaan sababta ay bislaatay inta sidii aan ka rabayna way ii noqotay marka dabkii dhan waan ka damiyay hadda birta la iska kulul waa kana hadda waxaan dusha kaga soo shubayaa waxa waaye waa barsali waaye cagaar oo qalalan aan dusha kaga soo shubayaa sidaan ayay mataqaanaa fuulkii aan soo kariyay aadna u macaan yahay aadna u fudud yahay waan healthy maasha Allah tabaarakallah waay sooskan aan sameeyay wax Allah wixii aad niyeysatid ayaa ku cuni kartaa maasha Allah waay aad u fududahay waqti badan kaama qaadanayso taagni badan kaama qaadanayso waana qada caafimaad leh maasha Allah wixii aan ku cuni lahayna iyo sidii aan soo diyaarin lahayna waa isla arkaynaa haddii Ilaahay yiraahdo laakiin fuulka qaabka u kariyo qaabkaas waaye saasa marka maanta idinka faa'iideynaayo fuulka qaabka u karsado hadda waxaan bilaabayaa insha Allah saana u dabool oo ka tago waxaan bilaabay in maqla ayaan dabka saartay saliid hal qaado camal ayaan ku soo shubtay waxa aan ku darsanaa haddii Ilaahay yiraahdo qudaartan kale qudaartan waxa waaye waa digirtaas freshka waaye waa digir green fresh iyo mushroom
yahay aan isticmaali doona. Mushroomka saas ayuu u egyahay, waan soo dhaqay, waan soo nadiifiyey, waana soo jarjaray haddii ilaahay yiraahdo. Magac kale oo lagu dhaho ma aqaano, mushroom la aqaana. Digirtii cagaarka ahayd ee freshka ahayd waa kaasaas u dheer tahay, ayadana waa soo jarjartay, waan soo dhaqday. Marka intaana haddana waxaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo inaan wax yar aan soo shiilo. Fuulki waa kasoo baxnay soo maaha, qudaartan kalena isaga lagu sii cunaaya. Marka waa kana mushroomkii aan ku horshubay. Wax yar waxaan rabaa inaan cuntadan taqaana biyo dhan laguma daraayo, laakiin waxaan rabaa wax yar inaan shiilo. Kadibna waxaan kusoo darsaday digirtii greenka ahayd ee freshka ahayd aan kusoo darsaday. waa kana qudaar yar cajiiba waaye oo healthy runtii aad iyo aadna u fiican, aadna u fudud qadadaani. Waa qada cajiiba, aadna u fudud, aadna caafimaad u leh. mar walba in hilib la cuno ma ahan, waxyaabahan kale inaad tijaabino waayo. marka waa kana akhyaaray saa u jeedin wax biyo ama ku darin, wax cusbo iyo wax kalena ma ku darin. mushroomkii markii hore intuu laala ekaa uu ka yaryaraaday wuuna shiilmay. hadda waxaan kusoo darsanayaa 4 xabo camal oo yaanyo mirooleda yaryariiska ah, yaanyo mirooleda yaryar dhanaan yar bay siinaysaa, aad u fiican tahay. baan kusoo darsaday, wax kalena weli ma aana ku darin. haddii ilaahay yiraahdo tartiibteedaasaan taqaanaa aan walwalaaqaya. wax biyana lagu daraayo, dabkana aad ma ugu kululo, normal meel dhexaad ayuu u yahay. waxaan kusoo darsanayaa baaba galaamis waxaa waaye soos yariis ayaan kusoo darsanayaa. haddaan sooskaan haysana dhib ma leh. waxaan kaloo kusoo darsanayaa khal waaye, khalka caadiga waaye, aan wax yaroo khala ayaan kusoo daray. kadib intaan la isku walwalaaqaya, xawaaji iyo waxaas uma baahni sababtoo ah fuulkii aan soo karinayo ayaa wax walba lahaa. marka tan fuulkii uun bay agtigaysaa. saa daraadeed ma rabo inaan xawaajiyo badan iyo wax badan aan isaga daro. wax yar oo cusbo ah bis aan kusoo bilbilay, wax yar oo cusbo ah baan ku daray ama milix. marka waa kaasaa saani iigu bislaata, ayadana saani diyaar iigu tahay. biyo dhan laguma darin, just saas loo shiilaayo. maqliga aan ku sameynayana waa kan aan waxba ku dhigin, kuma dhigaayo, dabkuna uu gaaban yahay. saani diyaar iigu tahay. kadib waa ka damiyay dabka, waa soo diyaarinaya, qaabka soo diyaarinaya isla aragna insha Allah. maasha Allah tabaaraka Allah, qada caafimaad leh, aad u macaan, aadna u qurux badan. waa kana fuulkii oo aan dhinac ka soo saartay qudaartii markii dambe aan sameynayay. iyo waxaan kaloo cadna waxaa waaye bariis aan biyo cad kusoo kariyay, wax kale laguma karin, bariiska biyo cad lagu soo kariyay. waa kaas ah qada aad iyo aad u qurux badan, aadna u macaan. ka faa'iideysta qadooyinka noocan oo kale, casho waa ka dhigan kartaa, qadana waa ka dhigan kartaa. aad iyo aad u fudud tahay, aadna easy bay u tahay, aadna waxtar bay u leedahay. borotiinkeeda yaa ka buuxa, hilib ma u baahnid. maasha Allah tabaaraka Allah, booska hilibka digrahana kuu galaya. maasha Allah tabaaraka Allah waaye. waa kaas ah qadadaas aadka iyo aadka caafimaadka u leh. haddaad diet ku jirtid, haddii aadan ku jirin, gurigaaga qadooyinkan oo kaleeto ka samee. waa qada aad iyo aad naftaadana u anficaysa, xaajigaagana u anficayso. waa kaas ah warmaa labadaa walaalahay qadadaas quruxda badan oo aadka u fudud, aadkana u macaan, healthigana iyo caafimaadna leh ayaa idinla qaybsanayay. cashana waa ka dhigan kartaa, qadana waa ka dhigan kartaa, laakiin ani qada ay ii tahay. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aana daawanaysiin. please haddii aan nagu cusub tahay markii kuugu horeysaa naga ilaawo subscribe ka tirada gambaleelkana afurta lana wadaaga asxaabtaada iyo familigaaga. asalaamu calaykum waraxmatullah.